أصحابتي قالوا هذا ما فهمتين هذا فهمتين يهدي كلامه فاهمين ديري بعد كسينا يا إنا كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالوا ولا لها برنامجك ساعة توك لسعودة كسر هذا حلقتين أجهريسي برنامجكنا ساعة توك ما أنت طبعا سدا مقالك أجهري عن إذن صوم بني أذكارك تنبأ وحنكه ليني أرميم وسامين كله nolosheena dhaqankeena iyo xiriirada alana asxaabta qoyska bulshada taasoo in lagu degdego go'aan qaadista ama go'aan qaadashada taasoo mararka qaar sabab u noqonaysa in si aan ku talagal ahayn ama anaga aan qorsheynin ama si xikmadaysan u fiirinin ayna gaarsiiso natiijooyin anaga aan rajaynin ama aan jeclaysanin go'aanka lagu degdegayo noloshu waxay ku leedahay dhibaatooyin fara badan saameyn waxay ku yeelanaysaa nafaheena qoysaskeena email tusaale sida muuqaalka bilowgiisaba aad ka aragteen fariin ayaa ii soo dhacday fariinta markaa ii soo dhacday fariin waxay aan wanaagsanayn ama anshaxa aan waafaqsanayn waan ka xanaaqay isla markiiba durbadiiba waan ka jawaabay si tii ii soo diray in mid ka sii xun laakiin qaybta dambe ee muuqaalka markaa dib u daawatidna qaybta ku sii xigtay waxa ogaanaysaa markaa iska daayay aan ka fikiray intaan fikiraay ee aan sugayay fariintii waa la tirtiray qofkii fariintii ii soo dirana wuxuu igu yiri waa kugu soo qalday ayuu igu yiri marka waxaan ka wadaa qofkaas aan sida inta yarta aniga aan dulqaatay waxay dhalisay in marka ugu horeyso fariintaas aniga aanan khusaynin laakiin isla markiiba haddaan go'aan gaaro oo aan go'aankii aan ku degdego oo aan u jawaabo qofkii si rad ficil ka daran ama aan u fahmo si ka sii daran marka mar walba hubsiimada Soomaalidu waxay dhahaan hubsiimada hal baa la siistaa marka u soo noqdo dhinaca kale dabcan diinteena gaar ahaan Quraanka Kariimka waxa ku jiro aayad Quraan ay sheegayso yaa ayyuhalladheena aamanu in jaa'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu marka dadkii Ilaahay rumeeyo hubsada inta aday war idin yimaado ama idin keeno hubsada intaad adinka go'aan iyo talaabo qaadan taasina waxay cadeeymi iyo tusaale noogu tahay inaan ku degdegin go'aanada noloshiina aan qaadanayno sidoo kale daraasadaha waxay sheegayaan arrimaha qoyska oo kale waxyaabaha ugu badan calaaqaadka dhibaato ku keena waxaa ka mid go'aanada ama hubsiimo la'aanta iyo go'aanada degdega lagu qaato ee aan lagu larin hubsiimo iyo hubsasho adiga ahaan hadda tusaale daawadasho ahaan haddaan ku weydiiyo noloshaada meeqa go'aan degdeg ah ku qaadatay balse markaad degdeg aad wixii aad ku fulisay ugu dambeyntiina ay noqdeen waxyaabo aan waxba kama jirin ama asaas aan lahayn dabcan jawaabta waxaan rajaynayaa inaad ii dhaaftaan sidoo kale waxaan kaloo idin raacinayaa qiso waxaa jirto uu warinayo qoraaga weyn ee Stephen R. Covey uu warinayo wuxuu yiri maalin maalmaha ka mid ah waxaan saarnaa train ayaan saarnaa tareenkii markuu muddo socday wadada waxaan u soo istaajiyay ama tareenkii soo fuulay nin oday ah ay la socdaan caruurtii iyo odaygii tareenkii soo fuuleen markii tareenkii soo fuuleen odaygu wuxuu fariistay kursiga ku xigay ayuu fariistay arrinta la yaab kale ee aniga arkay wuxuu leeyahay odayga ilmihiisa markay tareenka soo fuuleen isla markiiba ama durbadii waxay bilaabeen inay boodboodaan ciyaaraan ay buuq sameeyaan in muddo ahna sidaas ayay xaalkoodu ahaa odaygii ilmaha dhalina oo eeg fadhiyay indhuhu isku qabtay oo wax go'aan ah ama talaabo uu ilmihiisa kuma qaadan niyadda waxaan islahaa ninka odayga maxaa ku dhacay oo ilmihiisa idinka qaban la'yahay in muddo ah markay xaaladdu sidaas tahay baan isdhiirigeliyey ama isku dhiiriyey inaan la hadlo aan ku dhaho odayow ilmahaga naga qabso maadaama dad badan ay saaran yihiin ay buuq kicinayaan odaygii indhaha isku hayay baa indhihii kala qaaday sidaas uu eegay wuxuu ku yiri igraale noqo
anaa wax ka qabanayo. Wuxuu yiri sidoo kale aniga wax yar ka hor intaan tariinka soo fuulin ilmahan hooyadooda ayaa dhamatay, sidaas darteeda waxaan sameyn lahaa ayaan ka fikirayay iyo arrimaha ku saabsan geerideeda. Ilmaha waqti iyo maskaxna uma haynin, sidoo kale qaabkan ayaga ugu sheegi lahaa ayaan ka fikirayay. Marka wuxuu yiri Steven waxaan maleysanayay iyo niyadeeda waxa ku jirtay iyo xumahan adaygan ka aaminsanaa iyo waxa uu ii sheegay farqi u dhaxeeyo oo aad ka weyn ayaan la yaabay yiri. Marka meesha wuxuu ku sheegay degdegsiimada iyo xukunka ku degdegayna dadka mararka badan oo aad u tira badan saameyn ay nagu leedahay. Kama dambayskana waxa ay ku dhamaanaysaa shalayti. Xululka lagu daaweyn karo way iska badan yihiin, laakiin marka soo koobo waxa ugu horeeya waxay tahay inaan isku tarbiyeyno ama isku abaabino inaan arrin walba noo soo kororto aan waqti siino. dabcan af Ingiriis waxa lagu dhahaa arrin markay ugu soo kororto yani waxa la rabaa inaan barano waxa la yiraahdo let it go ama arrinka waqti sii. sidoo kale waxa la yiraahdaa wax walba waqtiga ayaa daaweeyo, waxyaabo badan waqtiga ayaa daaweeyo, degdegsiimo lagu ma daaweeyo. Mid kale waxay tahay mar walba inaan isku train gareeno ama nafteena aan ku tababarno inaan u fikirno sida oo yani wanaag ah, لأنه waxay dhahan carabta walaalkaaga u sameey 1000 cudrin cudur daar badan oo kumanaan gaaray u sameey. waxaana loo dhahaa yani waxa dhici karto inuu isan ula jeedin inay cilad kale jirtay laga yaabo. marka waxaan rajaynaa in oo arrinkaas nolosheena saameynta ku leh in badan oo naga kamid ah ay soo martay xaaladaas oo kale aan isku dayno inaan wax ka bedelno. waxaan rajaynaa in muuqaalka maanta halkaas aan kusoo gabagabayno wixii aan ka tagay iyo waxaad ku daraysaanba soo dhaweynaya. wixii talooyin ah wixii aad ku darsanaysiin iyo wax walbo commentiga ugu reeba. aad iyo aad u mahadsantihiin. wasalaam.